iyo dhibaato shakhsi in loo geeyo waa mamnuuc waxaan sheegayaa qodobka 29 oo dastuurka cunug kasto laguma qasbi karo inuu shaqo asagoo gaarin la shaqaalayo wuxuu xaq u leeyahay tacliim buu xaq u leeyahay in iskuulka la geeyo oo noloshiisa intii oo uu yeer yahay oo iskuulkaas wax ka barto waxbarasho wuxuu xaq u leeyahay caafimaad yuu xaq u leeyahay noloshiisa si sharci oo nidaamsan dhibaato ku jirin inuu ma aragtay u soo baarbaaraa loo baahan yahay qodobkaasaa sheegaya lama xiri karo xabsi lama geyni karo haddii daruuro keento oo dhibaato weyn oo khatar ku yahay waxaa la ogol yahay muddo yar in meel lagu haayo muddadaasna in loo keeno waalidiintiisii qofkii mas-uulka ka ahaa si loo ogaado xaaladdiisa nidaamka sharcigana waxaa loo baahan yahay si dhaqsi ah in loo mariyo xugun weyn laguma ridi karo laakiin waxaa lagu ridi karaa xugun oo aan ahayn xugun oo xabsi ahoo in meel la geeyo laga celinayo dhibaatada uu geynayo dadka u geysanayo oo tababarna lagu siinayo waxaana markaa arrinta dabagalkeeda mas-uulka ah garsoorka iyo wasaaradda cadaaladda intii uu ku jiro xabsigaas mise dacwo ku socoto wuxuu xaq u leeyahay kaalmo sharciyeed oo bilaash ah in lacag laga qaado maxkamadihii ayadana ma bannaan waxaa mamnuuca ah haddana wasiirada ay sheegtay in la caskareeyo barnaamijkaas oo aad iyo aad u weyn wasaaradda gaashaandhigga ay ku mashquulsan tahay caskaraynta caruurta waa mamnuuc yacni sharciga dastuurka diidaya wasaaradda gaashaandhiggana waxay ka soo saartay habraacyo fara badan yay ka soo saartay wareegtada la soo saarayna waxaa taliyaasha loo sheegay iyo taliya qiibaadada oo dalka loo sheegay iyo laamaha taliyaasha in marba aan bannaaneen in la caskareeyo caruurta